السلام الله عليكم أصحابتي إيش كسونا قشوا ناكسن ما أنتوا وحان إذين هيا برنامج حساسي برنامج كقرعيه وقروح بدل وايد ديار أدينا كومنت قروح بدل لايك يولي بقى سبسكرايب وياي صاحبتي عد كدا wax ka fahmi weydaan saraakiisha baad cod kada wax ka fahmi weydaan hal lagu qaato xaalada hirgab ah iyo kala wareeg xilliga qabobaha la galaya marka xaalada hirgab dhowr xiran iyo waxba iska jira saasta wala dagaalamayaa waxa way liinta iyo sanjabiisha iyo filfisha iyo maraq iyo waxa taqa marka waxa way soo duceeyay inuu Ilaahay waxa way iga dul qaado la asaasu taadana oo lagu qasbay dhalinyarta in mar walba dhalinyarta waxa way loo shaqeeyo ووحي maalintii madaaladii ama wixii barnaamijku xaq lagu leeyahay inaad u soo gudbiso dhalinyarada lagu qasbaya marka halii cimaamada maanta codkayga dax ka fahmi wadaan halii cimaamada baatahay maantay waxaan rabaa inaan dul istaago arin badanaa dadka ka qarsoon laakiin si mudan in la iftiimiyo bulshadu wallahi billahi Soomaaliyeed bulshada maraha hal dhinac wax ka aragnaa dad badan oo naga qarsoon baa jira oo dhibaataysan waxa jirta hees TikTok-ga waan heebiyaa manahaye heestaas TikTok-ga waa idan dambi aad ugu soo badatay qofka marka wuxuu u baahan yahay ama markaas ka maqan buu sawirkiisa soo saaranaya waan heebiyaa manahaye buu dhahayaa aniga haan heestaas markaan gabdho kal wato oo dhaqan xumo oo waan heebiyaa manahaye iyo marka arkay iyo waxa way dad iPhone raadinayo kala iyo waan heebiyaa waxa isku jira macna kuma jiraan waa kasii gudbi jiray asaaben dhaweedo challenge 12 kun oo qof ku dhawaad ay sameeyeen aan daba galay ba waxaan ka soo ogaaday xaalado aad u badan waxa jira dad baahidooda dhabta ah oo asaasiga ah ka hadlaya laakiin dadkaas badan ay ku dhex jiraan maalayacniga baa qarinaya bal haddaan idinka tuso muuqaalada wadna taabadka ah ee bulshadeena dadka nagu dhex jiray qarsoon haddaan hal iyo laba idinka tuso waxa ka mid ah hadda muuqaalkan sida u jeedaan gabadhaasi waxay soo dubtay burjikadii oo dansan baastadii iyo raashinka meesha soo saartay waxay leedahay waan heebiyaa manahaye wala yaabaa inaan is dhihi karno muuqaalkan qaab fani ah loo sameeyay laas qof raashinkii dabka la saari lahaa challenge ku sameeynaya inuu jiro ilama weyn adagta waa dhanka qarsoon ama bulshada dhankeena ka qarsoon bay ka mid tahay tii hore mid ka daran baa timid wiilkan iyo gabadhan sida u jeedaan way isqabaan waa family hadana waxay dhaheen ubad bay raadinayaan macnaha waa dalabyada saxda ah heestaas ku dhex jira waa dalabyada saxda ah ee dhowrka qof ama 20 qof gaaraya ee wadna taabadka ah dadka kale kibir iyo mid dhar raadinayo mid ma taqaana laakiin se awlaado kale cuntadii maalinka la karin lahaa dabkii la shidi lahaa iyo kale iyo waa waxyaalaha jaarijiga markaan ku arkay aad iga yaabiyo waayahay sidoo kale gabadhan inkastoo nolosha aasiga aysan ahayn laakiin waxay raadinaysaa qasaaladii marka lagu dhaqi lahaa waa laga yaabaa inay 5 ciyaar leedahay waa laga yaabaa inay ma taqaana 7 ciyaar leedahay oo maalin walba dhar u fadhido waa fariin kale ayadana macquul ah oo la shidii karo dadka baahiyahooda saxda ah soo gudbiyay ka mid tahay waxaan kaloo xasuustaa in gabar curyaana oo gaariga lagu riixo oo intii soo dhigtay oo dayacdo loo komentaan ugu soo qoray walaal ana gaarigaas ku gaday aniga diyaar ku ah dabcan inuu iibiyo ka bacdi baan maqlay marka dabcan heestan dalabiyadeedu waa dheeraadeen oo heer ilaa dayacdo nuurshe ay gaaraan oo fanaaniintu dadka caawiyaan biheestan saameynteeda ay yeelatay waayahay sidoo kale muuqaalada aan ku farxay markaan arkay sida dareenka la soo jiitay waxa kamid ah muuqaalkan waa xajka isagu nololaha asaasiga ma aha laakiin waajibaadka qofkii awooda oo Ilaahay ina saaro waa dhanka positive-ka waxyaalihii fariimihii macquulka ahaa ee dadka ay dirsadeen ee heestaas laga soo dhex qaban karay baa ilaa had idin wada macnaha oo idin soo xulay xajka iyadoo sidoo kale gabadhan waa dalab ay dalbanaysay laakiin wax waajib ah ma aha waa wax qofkii awooda ah waayahay sidoo kale dhanka dhalinyarta marka u soo gudubno marka oo baahiyihii waaweynaa aasiga ka imaano dhanka dhalinyarta kale waxa jiro afar xaasle aniga waxa sidii ninkan ahad ma haye inuu hal xaas dalbaday ku wanaagsanaan leed laakiin ninka wuxuu dalbanaya afar xaas nin walba
oo meesha ku jiro wixii ka maqan ilaahay u sahla hadda adiga commentiga wax aad heebinaysid oo aad jeclaaleed inaad hesho bal commentiga nagula wadaag waayahay sidoo kale gabadhan waa baahiyaha asaasiga dabcan faruurtii xataa qaninaysaa waxay leedahay ilkaha la xirto inaysan awoodin baa dhici karta dalab buu ahaa si sax ah ii taabtay marka aan challenge-gaas intii qof ay samaysay aan daba socday dalab sax ah oo qaab si sax ah ii taabtay buu ahaa wasdii karnaa gabadhaas inay mar walba ku fikirayso in maal ilkeeda ay xirato ilkeeda u qurux badnaadaan laakiinse aysan tabarteedii aysan haynin waayahay muuqaalada marka aan meel u raacan garan waayay oo markii aan daawaday xataa aan la yaabo muuqaalkana ka mid ahaa gabadhan ma waxay raadinaysaa dhimasho ma stress baa ku furan ma fani bay ka tahay hadday fani ka tahay waxyaalo aan lagu kaftamin baa jira xaalado aan kaftan gelin baa jira geeridu ay nagu sugaysaa geeridu way imaan doontaa qof walbayna u qoran tahay camalkaaga wanaagsan haddaad samaystid oo khaatimada ilaahay ku hagaajiyo geerida mar walba ku imaanaysaa marka ama waa kaftan fogaaday oo doqonnimo gaaray ama waa qof nolosha ku yar adkaatayo ha laga warhayo aslee gabadhan waxaa laga yaabaa mar dhow inay mataqaanaa hawada waayahay sidoo kale muuqaalada meel u raacay confusedka aan ku noqday waxaa kamid ahaa muuqaalkan waa musqulihii waagii hore la isticmaali jiray ninkaana guri musqul aan kuma noola laakiin waxaan u fahmay inuu leeyahay war musqulihii waagii hore waagan baadiyaha iyo wadankii intiisa baaladan fadhiga intiisa soo gaarin musqulihii la isticmaali jiray u xiisnay macnaha ahaan oo dhanka kaftankan u qaatay laakiin qof maanta joogo oo inuu musqul la'aan u nool yahay inay jirto oo kale ilama ahan marka waxay ahaayeen baahiyaha asaasiga ah laaseestaas waxaa ku badan inta qof iska baashaalayo mid gabar caan ah soo dhiganaya mid 100,000 in la gaarsiiyo rabo soo dhiganaya mid maaliyad soo dhiganaya mid kubad soo dhiganaya mid telefoon soo dhiganaya waxyaalaha waxaa ku badan normalka ah oo iska kaftanka iyo baashaalka ah sidoo kale waxaa ku dhex jira dalabyo si sax ah ay bulshada dadka qaar u gudbinayaan oo baahi asaasi ah oo markaas haysto sidii dadka hadda ay soo kale ubadka dadka dalbanaya waa ku badan yihiin dad badan oo ubadka dalbanaya ku jira intii ubad la'aana ilaahay ubadka ma taqaana hasiyaan leeyahay intii dabku ka dansiyaa ilaahay dabka u daaro maalin kasta inaan xogaha kaftan iyo barnaamij baashaal inaan ku mashquulsanaano laga qurux badan yahay marbar dhanka bulshada xogaha indheheena inay qabtaan bay ku qurux badan tahay marka insha Allah kulli uu duceynaya waxaan leeyahay war dadkii baahiyahooda ilaahay hawa qabtiraan leeyahay waayahay barnaamijkii maanta ku fiirinayay bulshada baahiyaha ka qarsoon intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamij ku qanciyo oo qurux badan waa iga diyaar adigana comment qurux badan like waliba subscribe